بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين برسابك قبل كهيلان مدن سعيد حسين محمود إربر تليها قيبت بوليسكا بنتلان قاشان لسري جامع محمود قبيرة قدومي كحجان كقولها الدجان كدجمة النهار اللي بعنا قولها الدجان كدمان كسوق الجلاياشة كلا فردية فرنيك كلا فردية كواد قولها الدجان كعصب الدجمة النهار ay ugu horeeyaan isimada nabadoonada culimada aqoon-yahaniinta ururada haweenka saxafiyiinta saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida dhammaan waxgaradka kale ee ka soo qayb galay waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaam kadib mudanayaal iyo marwooyin maanta waxaa ilaahay mahadiisa inaan halkan u fadhidaan furitaanka kala fadhigii koowaad ee golaha deegaanka ee degmada Dhahar. maanta waa maalin weyn, waxaa sharaf ii ah inaan hortiina soo istaago anigoo ah gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Dhahar. sidaad la wada socotaan kala fadhiga kani waa kala fadhigii ugu horeeyay ee golaha deegaanku ay yeeshaan, waxaana ka soo qayb galay dhammaan bulshooyinka ku dhaqan magaalada Dhahar iyo daafeeda iyo tuulooyinka ku xindaaman. mudanayaal iyo marwooyin, degmada Dhahar waa degmo ka mid ah degmooyinka ugu faca weyn deegaanada Puntland, hase ahaatee ay ka muuqato dib u dhac ballaaran waana mid qof kasta oo inaga kamid ah uu arko. waxaana maragma doontaa inaad degmadani aysan helin ama laga hirgelin wixii ay xaq u lahayd ka degmo ahaan 22 sano ee jiray dowladda Puntland. hase ahaatee maanta ma doonayno inaan cidna ku dhaliilno dib u dhacaas, hadday ahaan lahayd xukuumadii soo maray dowladda Puntland iyo maamuladii soo maray degmada. halkan waxaan ka cadeynayaa inaan la joogo waqtigii aan ka wada shaqayn lahayn sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha degmada iyo tuulooyinka ku xindaaman. mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, kadib inta aanan u guda galin waxyaalaha noo qorshaysan muddada aan xilka hayno, waxaan u horeysiinayaa waxaan soo qabanay muddadii yareyd aan xilka haynay. waxaan amarkii madaxweyne Siciid Cabdilaahi Deni uu bixiyay in la baneeyo suuqa weyn ee degmada Dhahar. baneynta suuqa magaalada Dhahar sida la wada ogsoon yahay, waxaan baneynay suuqii weynaa ee degmada, suuqaas oo lagu bedelayo suuq weyn oo casriya oo leh wadooyin waaweyn, tobolen fiican iyo solar system fiican. banaynta qaybaha kamid ah wadooyinka waaweyn oo xiran oo lagu xiray dhagaxa iyo bogcadaha oo aan banaynay oo aan ugu talagalnay inaan marino solar system. la tashiga bulshada, waxaana shirar la tashiya la yeelanay bulshada qaybaheeda kala duwan, ururada haweenka, guddi xaafadeedka, ururada dhalinyarada, cuqaasha iyo waxgaradka iyo aqoon-yahaniinta degmada. waxaanu safaro shaqo mid maamul daadejin iyo u tagnay tuulooyinka magaalada ku xindaaman sida ay ugu horeysay degmada kala dhacdana aan ku soo aragnay iyadoo ka jiro baahiyo aad iyo aad u daran ay xataa ayna lahayn MCH. waxaan kaloo tagnay tuulada la dhaho Boodacad iyo tuulada la dhaho Baraagaha Qol oo nagala joogo hadeer gudoomiyay tuulada Absalaan Qaalib Dalmar. waxaan kulana la qaadanay hay'adaha kala ah Save Children iyo Care International iyo NRC iyo ARC. waxaana kala hadalnay qaabkii loo qaabili jiray, waxaan wax ka bedelnay qaabkii loo qaabili jiray hay'adaha annagoo u sameynay guddi isku dhaf ah, guddigaas oo ka kooban xubnaha golaha deegaanka iyo bulshada degmada.
waxaanu dhagax dhignay annagoo isku kooban oo ugu horeeyaan barasaabka gobolka iyo taliyaha qaybta anigoo ah maayarkii degmada iyo golaha iyadii deegaanka waxaanu dhagax dhignay xaruntii dowladda hoose oo aan ku bilaabayno maalmaha kan in dhismihii ku bilowdo haddana waxaan ku shaqaynaa guri aan ka kiraysanay magaalada maadaama uuna jirin xafiis hore lagu shaqeeyo waxaanu samaynay markii ugu horeysay system lagu aqoonsado degmada loogo waxaanu samaynay degmadu ay leedahay si loo aqoonsado degmadu inay tahay degmo jirta waxaanu samaynay loogo casri oo aad ka aragtaan haddeer sawirkan gadaal ku yaala mudanayaal iyo marwooyin qorshe siyaasadeedkeeda saldhig waxa uu ah 4 tiir oo ka mid ah maamul daadejinta heer degmo ilaa heer tuulo annagoo ka duulayna baahiyaha ka jira waxaanu dhisi doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan dhammaan waxyaha muhiimka u ah fulinta maamul daadejinta 2 hirgelinta cashuurta waxaan hirgelin doonaa miisaaniyadda ay yeelan doonto dowladda hoose ee degmada Dhaxar iyo inta hoos timaada sida shaqada dowladdu u socoto si habsami ah sida ugu dhaqsiyaha badan bilaami doonaa ururinta cashuurta annagoo lana tashanayna bulshada degmada iyo deegaanada ku xayndaaman lana tashanayna xooga saarayna ganacsatada degmada iyo kuwa ku xayndaaman magaalada ku xayndaaman si uu tashi aan u bilowno cashuurtii degmada markan waa arrimaha bulshada nadaafadda waxaan xooga saari doonaa abuurista bilicda iyo nadaafadda magaalada Dhaxar iyo deegaanada hoos yimaada waxaan sida ugu dhaqsiyaha badan u dhisi doonaa guddi nadaafadeed iyo guddi bilicda magaalada waxaan qorshaha noogu jira caleynta iyo dhiraynta dhammaan wadooyinkii waaweynaa aan furnay ee magaalada Dhaxar si ay u fududaato wadooyinka waaweyn aan furnay si ay noogu fududaadaan guryaha kan wadooyinkan aan u bixino magacyo si ay noogu fududaadaan guryaha si aan u calaamadsan lahayn ama lambarro aan ugu qoran lahayn waxaan sidoo kale dhisi doonaa guddi kale oo nagala shaqayn doona bilicda magaalada waxaana qayb ka noqon doona odayaasha dhaqanka injineerada deegaanka haweenka dhalinyarada iyo qurba joogta si loo helo Dhaxar bilic leh laami iyo qurux badan leh horumar muuqdo oo ka muuqdo dhanka waxbarashada waxaan wada ogsoonahay inayna magaalada iyo tuulaan ku xayndaaman ay ka jirin maktabado ay ardada ay wax ku akhristaaniin taasoo dib u dhac badan uu ka bilowday si ay ardadeeneen u helin inay maktabad isugu yimaadaan wax ku akhristaan si ay uga helaan baahiyahooda oo dhan sidoo kale waxaan wada hadal la furaynaa jaamacadaha ku yaala Puntland si ay u yimaadaan degmada Dhaxar ugana furtaaniin faracyo caafimaadka waxaan muhiimadda siinaynaa inaan u qareenno meelaha aan lahayn xarumaha caafimaadka inay helaan sida ugu dhaqsiyaha badan xarumo caafimaad sida MCH waxaana sidoo kale wada shaqayn dhow la yeelanaynaa hay'adaha ku shaqo leh horumarinta caafimaadka arrimaha sportiska waxaan dhisi doonaa naadiyada degmada iyo kuwa heer tuuloba annagoo u raadin doona qalabka ciyaaroodkooda sportigu wuxuu qayb weyn ka qaataa isdhexgalka bulshada sida taariibta iyo qabyaaladda iyo mukhadaraadka dhinaca kale ugu muhiimsan waa amniga iyo cadaaladda haddaan amni iyo cadaalad jirin waxba ma soconayaan waxaan wada shaqayn dhow la yeelanaynaa laamaha amniga heer gobol iyo heer degmoba mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh waxaan ku soo gabagabeynayaa kala fadhigan wuxuu inoo furi doonaa irido badan oo xirnaa wuxuu Dhaxar iyo tuulooyinka hoos yimaadaba u furmi doona beej cusub oo ku noqon doona u furmi doona waji cusub iyagoo wajigaas furmaaya la tashi iyo talo wadaag ku furmaaya gabagabadii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guud ahaan mas'uuliyiintii dardar geliyay in halakan laga dhiso golo deegaan oo ugu horeeyaan marka heer gobol aan dhaafno barasaabka gobolka Highland iyo taliyaha qaybtu waxaana aadi iyo xildhibaanadii dowladda Puntland ugu horeyn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo arintan aad iyo aad uga qayb qaatay Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad
iyo wasiirada uu hogaaminayay sidoo kale waxaan salaamayaa guddiga tuulooyinka oo nala jooga heer tuulo inta nala joogtay inta naga maqanba waa salaamayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan marti sharafka ka soo qayb gashay xafladda tan qiimaha iyo qaayaha leh waxaan u mahadcelinayaa maamooyinka na soo ajiibay oo noo yimi dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin maamo Faadumana waxaan leeyahay insha Allah ma dhici doonto in dumarku waxa dhici doonto insha Allah intaan xilka joogna anaga iyo barasaab gobolka anagoo la tashanayna heer gobol iyo heer degmaba ina xaqiina iyo xuquuqdiina heli doontaan insha Allah billahi kareem